asalaamu calaykum daawaade kusoo dhowow islamic technology sidoo kale kusoo dhowow xirfadda muuqaal samaynta waa muuqaalkii toddobaad inagoo isticmaalna mobilekeenna gaar ahaan barnaamijka loo yaqaano power director insha allahu tacaala muuqaalka waxaan ku qaadan doonaa qaabka muuqaal sayska youtube kale loogu bedelo sayska tiktoka inagoo isticmaalna mobilekeenna sidoo kale insha allahu tacaala muuqaalkan waxaan ku baran doonaa qaabka loo sameeyo transitionska haddii aanad fahmin macnaha transition insha allahu tacaala muuqaalkan gudihiisaad ku fahmi doontaa kusoo dhowow muuqaalka soo dhawaada saaxiibayaal mar kale kusoo dhawaada kanaalka islamic technology saaxiibada qiimaha badan leh barnaamijka loo yaqaano power director waxaanu kasoo diyaarinay 6 muuqaal oo hore haddaad muuqaaladii hore u baahan tahay commentiga ugu horeeya insha allahu tacaala aad ka heli doontaa applicationkan oo boqolkiiba boqol fiiri ahna sidoo kale commentiga ugu horeeya insha allahu tacaala aad ka heli doontaa sidaa awgeed barnaamijkan marka ugu horeysa soo furi doonaa kadib markaan barnaamijka soo furno halka new project ay ku qoran tahay aynu ku dhufan doonaa sidii aynu hore usoo baranay kadibna magac aynu ku qori doonaa halka waxaynu ku qori doonaa tusaale ahaan tasti 4 aan ku qorno insha allahu tacaala markaa saysaskan kala duwan baynu dooran jirnay maanta waxaynu dooranaa sayska taagtaaga tiktoka iyo weliba youtube shortska lagu isticmaalo okay intaa kadibna waad arkaysaa markaan dooranay qaabka ay shaashadu isku bedeshay kadibna mobilekan soo jiifinaynaa okay sida ku muuqata waynu soo jiifnay mobilekii sida awgeed waxaan isku dayi doonaa inaan muuqaal kusoo darno haddii eebaha wadani inoo ogolaado okay asxaabta qiimaha badana sida ku muuqata waxaynu kusoo darnay runaantii muuqaal baynu kusoo darnay laakiin waxa suurtagala inay kuu muuqato muuqaal khayr oo aad u fog oo halkaa yaala sidoo kale eriyadan oo dhan dhammaanteed oo madow ah marka ugu horeysa waxaan ku tusayaa waxa weeyaan intaas ayaa loogu talagalay inuu muuqaalku kasoo muuqdo laakiin intii uu kasoo muuqan lahaa qayb ka mid ah ayaa runaantii madow ah sida kuu muuqata sida awgeed waxa weeyaan muuqaalka ayaan soo dhaweyn doonaa markaan muuqaalka soo dhaweyno eriyadaas oo dhan ayuu buuxin doonaa insha allahu tacaala markaa sida awgeed halkan aynu taaban doonaa timelineka aynu taaban doonaa muuqaalka aynu select garayn doonaa kadibna halkan calaamada qalinka aynu ku dhufan doonaa sidaynu hore usoo baranay intaa kadibna waxaan tegi doonaa halkan ay ku qoran tahay fit and fill ayaynu tegi karnaa kadibna waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay fill halkay ku qoran tahay kadibna muuqaalkii waa uu soo buuxiyey meesha aynu rabnay sidoo kale qaabkan waynu ka noqon karnaa waxaan tegi karnaa meeshan ay ku qoran tahay crop halkay ku qoran tahay halkaas ayaan tegi karnaa crop meesha ku qoran tahay haddaan taabano waa kuwan farahu inoogu tilmaamaya wuxuu leeyahay yani sidaas adigoo faraaga u isticmaalaya kala jiid kadibna way taaban doonaa kadibna muuqaalka ayaynu saa fareyna ugu soo kala dhaweyn doonaa sida uu inoo tilmaamay ilaa aan kusoo buuxino meesha aynu rabno qaabkaasna waa qaabka kale la isticmaalo insha allahu tacaala qaabkaana waad isticmaali kartaa haddii aad u baahan tahay sida awgeed muuqaalku sida kuu muuqata waa uu soo buuxiyey dhulkii loogu talagalay eriyadan looguma talagelin inuu soo buuxiyo laakiin eriyadaasa loogu talagalay inuu soo buuxiyo hadda uu soo buuxiyey sida awgeed si aynu uga noqono hal mar baynu halkaa ku dhufan doonaa kadibna waxaan ku noqonay meesheenii caadiga ahayd kadibna muuqaalka intaad u baahan tahay hadday 1 minute tahay hadday 2 minute tahay hadday 5 minute tahay adiga ayaa ka goosan karaa tusaale ahaan muuqaalkan kasoo qaad eriyadaasaan ka jarayaa eriyadaas baan ka kadgaraynayaa first minute-ka ugu horeeyaan kad garaynayaa kadibna kiyo halkan ii select garaysan halkan qalin baa iga soo bixi doona halka qalinka markaan taabto kadibna halkan sakiintaasaan ku jari doonaa ama halka split ay ku qoran tahay kadibna markaan split gareeyo waxaan select garaysan doonaa qaybta aan rabay inaan delete gareeyaan hal mar gacantayda ku taaban doonaa kadibna halkan delete ayaa ku taala delete baan taaban doonaa kadibna waan delete gareeyay qaybtii kadibna haddana waan dhageysan doonaa intaan u baahanahay tusaale ahaan 1 minute kaasaan tusaale ahaan goosanayaa kadibna sidoo kale split ku samayn doonaa splitka iyo waxyaabahan hore inuu soo baranay asxaabta qiimaha badan ay nagu xidhan qaybtaana waynu ka delete garaynay kadibna 1 minute kaasaynu tusaale ahaan aynu edit garaynaynaa marka muuqaalada noocan ee marka ugu horeysay waxa lagu soo diyaariyey kiyo sida jijiifka ah sida youtube-ka oo kale imikana taag baynu muuqaalka ka dhignay sida awgeed waxa laga yaabaa inuu marna qarsoomo muuqaalka qayb ka mid yahay marna ay soo dhawaato oo muuqaalkan markii la sameynayay lasoo zoom gareynaya marba angle kamarada laga gelinaya ama marba angle sidaas oo kale imika waxa weeyaan qayb ka mid ah tusaale ahaan qarsoontay sida awgeed haddaad rabto inaad dib u habayso hal marba taaban doontaa kadibna splitka ayaa taaban doontaa kadibna tusaale ahaan qaybtaas imika sheekhu inuu soo wada muuqdo markaa rabto halkana taaban doontaa kadibna waxaa ku noqon doontaa meeshii aynu hadda cropta aynu joognay kadibna sidan baad usoo riixi doontaa kadibna halkan baad ku dhufan doontaa haddana waxaan rajeynayaa inaad si fiican dhammaantiin asxaabta qiimaha badan leh u fahanteen kadibna saas ma isticmaali doontaa sida imika kugu muuqata saas aynu ka yeelnay
sidoo kale waxa jira wax loo yaqaan transactionsku waxa weeyaan halka laba muuqaal iskaga soo darsamaan haddaynu tusaalaan saa usoo dhaweyno halkaasaa loo yaqaanaa waa halkaas labada muuqaal iskaga soo darsamayaan halka hadda taabato waxa kusoo bixi doona noocyo kala duwan oo markay labada muuqaal markuu ka baxay muuqaal kale uu soo gelayo uu noqonayo tusaale ahaan haddaynu kan doorano blurka haddaynu doorano u fiirso waynu balay-garayn doonaa u fiirso muuqaalkaasi muddo hal sakan ayuu big yidhi sidoo kale halkaasaad ka kordhin kartaa muddada ama aad ka yareyn kartaa muuqaalka transactionska uu sameynayo waxaa jira noocyo kala duwan oo transactionisa kuwa 3D xataa jira tusaale ahaan kaasoo kale iska doortaba kaasaan doortay oo soo geli doonaa waxoogaa waqti uu soo dhowlagaraysmi doonaa sida kuu muuqata qaabka safxado oo kale ayuu rogmaya u fiirso markuu muuqaalkaasi halkaas soo gaadho muuqaalka wuxuu noqonayaa sida safxadda oo kale ayuu saasoo kale u rogmaday sida awgeed transactionskana waxaasaa la yidhaahdaa muuqaalada tiktok dhaadheerna qaabkaasaa loo soo edit gareeyaa waxaa jira dad tiktoka caanka ah ama runaantii muuqaalo noocaas oo kale inta badan soo jarjara xirfadanuma inta badan isticmaalaan aynu imika isticmaalayno ama qaab kaloo kale u jarjaraan waxaa rajeynaya asxaabta qiimaha badan leh inaad si fiican u fahanteen sidoo kale haddaad rabto inaad kalarka ka bedesho ama effect iyo waxyaabo lamid ah u samayso halkan aad taaban doontaa kadibna qalinka kadibna optionadana horeynu usoo baranay optionadan oo dhan waynu soo baranay asxaabta qiimaha badan leh halkan optiono fara badan ayaa runaantii aanu kasoo hadalnay sida kan ah in smooth lagaga dhigo jidhka kuwan ah effectiska kuwan loo yaqaano filteriska waxyaabahaas oo dhan runaantii wax badan ayay runaantii muuqaalka quruxdiisa ka bedeli karaan waxaan rajeynayaa asxaabta qiimaha badan leh inaad si fiican u fahanteen qaabka loo soo dhaweynayo muuqaalada tiktoka youtube shortiska reeliska muuqaalada dhaadheer ee noocaas oo kale ah muuqaaladaas noocaas u dhaadheer oo dhan ayay insha allahu tacaala ayaa qaabkan loo edit gareeya waxaan rajeynayaa asxaabta qiimaha badan inaad fahanteen tan intaynu ku kulmi doonaa casharkan oo kale lamid ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu